الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا إيو أخيارتا إيو ولالها ميلكستو الجوكتان سور دوادا كسور دوادا بوغي فيسبوك عاوة كلمة كصابسا موضوعي يعني إعلانيي يا أها يا دورانيسا وسؤال مهمة سيدان شاقي وحانا فيليا وقت قيدي إلا تشوبه دوركي السنة بريهان مربين غصو نقطة هذا الكيغو حقوقي بسنان دونا إن شاء الله تعالى هردع صدح قضبة إيو أرهنك موضوع عن كهالينو إلى أفر قضب عن كسو كوبو iyo gunaanad ilaa afar qodob oo dardaaran iyo su'aalo ka jawaabida la isweydiinayo waa marka koowaad ee hordhaca la shaki kama jiro markii aan mowduucan oo kale soo dhigno in dad badan isweydiinayaan wartalo wadaadku ma inuu isa soo sharaxo rabaa mase musharax buu wataa waa sax xaq baad u leedahay inaad isweydiiso anigana xaq baad igu leedahay inaan kaaga jawaabo oo aan jawaabteeda ku siiyo si cad oo sariix ah oo aan laalaab lahayn ilaahayna subxaanahu wa tacaala inuu og yahay ilaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaan sheegayno iyo wixii inaan sheegayno xataa uurka ku jira yaclamu sirra wa akhfa rabbi subxaanahu wa tacaala iyo marka waa inaan ku hadalno wax daacada insha allahu tacaala oo sheegno waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqayno وإلهي إنه نقول حسابنا يوان أجنهي تذكر قاربة إسويدين يهو لقيا بإني كسي فكريان طلو ولادكو يوطا حسبيين لجرا قولدين لجرا وحالا يقانا وحلا يراد هذا معارض يو محافظ طلو لوضا كيبو وطا ومعارضكو قيب كم إذا وطا أما كل جرا أما لجرا ama hala doorto leeyahay mase muxaafidka iyo qoliyaha iyagu markaa dawlad kursiga fahaysta ayuu leeyahay iyaga hala doorto hala hayo annaga qaar baa isweydiinaya innaga xisbigeenna wadaadku xaggee ka taagan yahay qaar baa isweydiinaya qabiilkeenna xaggee buu ka taagan yahay iyo inaga ninka reer hebel u taagan reer hebel qofka u taagan intaas ba insha Allah taala waxaan jeclahay inaan wax ka cadeeyo insha Allah taala jawaabtuna ay ka soo baxdo hadallada aan sheegi doono insha Allah taala mid labaad oo hordhacay waxa weeye xusuusin oo waxa weeye إلهي سبحانه وتعالى وحنا فريا وحن شيقينه هدان هذا لينه يهدان حكومينه يهدان محضورينه انتبه عدالة كونوا قوامين بالقسط إن الله يأمر بالعدل إلهي سبحانه وتعالى عدالة بين فريا عدالتنا قفك كلا واحد كتر يسوق عدالة فليسو كلية ما أنفعي سي هذه واحد كتر يسا مركا العدالة فشو والنبي عليه الصلاة والسلام وحو يري 3 منجيات صدح قفك ويبد بادسة هوق أدون عيب أدون إيو عذاب آخره لبضا بويكبد بادسة عدالته مركا أدي كبد بادنيسة وعدالة بدبادة قوطة سيدو النبي عليه الصلاة والسلام 3 منجيات وحاكم إذا صدح ذا العدل في الغضب والرضا mar aad raalli tahay qof aad raalli ka tahay iyo mar aad raalli ahayn aad caraysan tahay oo qof aad u caraysan tahay ama cid aad u caraysan tahay waxa la rabaa labadaba in cadaalad samayso saas oo xadiisku ina faraya diintuna ina quraanku ina faraya marka horta waa inaan cadaaladda had iyo jeer ku fikirno oo had iyo jeer aan laasimno bani aadan baan nahay waa qaldamayna laakiin waa inaan had iyo jeer isku dayno isla mar ahaantaas qofka
إن خلافسن وين نجيسنو وإن وحيسة تحجلين سينو تحجلين ها وين سينو ومحاد عي تحجلين تأثينا يسوي استماع على بلقيا بين كفائدة ستسمع إلهي سبحانه وتعالى قال دي المشركين تاعها إيه قريش يكوي لمتك أيو إلهي سبحانه وتعالى النبي جيسا وكل يهي مركا آد لدوديسو دود واحد كسو حريسا كل إلا بدينا مدقون بقلدن أو كجرة فيري هذا قفك أديك كو خلاف سن وأد أكتهي حتى أما مركا قار كودنا دين أهان آد بهوبتو إنو قلديه سيدا قفك شركة وكجرة أياد هادنا جانس واحد أسينيسا دودا درتين iyo xurriyada ra'yiga darteed iyo maskax furnaanta iyo qalbi furnaanta iyo aqli furnaanta darteed ayaad waxa leedahay kulli anigu warkayga waa ku sheegay labadeena mid u baaqaldan una cadaan doona kii qaldan qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardi qul illah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin subhanallah alladhi islaamku qurux badana hadii la fahmo qurux badana وأنك محركات راه ويا سمد إذا كيف ساق دليل ما يبغى يا دول كيف كيف ساق كل إلهي بأورنا يعني ما لك يكون جوابه مركه هدي ساس قريسان إلهي كل إنا عبدان حق ماها إنه عطية ما أباها نبا وحال يرى هذا وحال أور ليه أنك يدينك مركه مد بابادي إنه ما كسبان لكن كان شيء جيه إلهي إنه سمد كيف ساق وهذا خلاف سن السجا ضال ما كسب marka had iyo jeer walaalayaal waa inaynu baranaa qofka ka ra'yi duwan ka aragti duwan ka yani ma mawjada ra'yi duwan inaad dhageysan karto wax faa'iido inay kaaga soo baxaan baa dhici karta kelimad inaad ku baraarugtaa dhici karta waxaa dhici karta xaqu inuu kuu muuqdo dhinaciisa kaaga muuqdo ilaan bani aadamku waa u qaybsan yahay ra'yi midda saddexaad oo cadaaladdu waxay ku taraysaa loona baahan yahay in ay tahay qofkan aad yani kala duwan tihiin yay ku indhatirin cadaawadiisu yay xaqa kaa indhatirin ilaa xaq adu wax ku taraya cadaaladduna ada wax ku taraysa saasay diintu nagu waanaysaa walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa wargaal buu noqon karaa ma aha xataa soomaali muslin ah wax kale gaal baad la doodi kartaa oo aad arki kartaa ra'yigu mar haddii wax diinaho qadciya aanu ahayn ra'yiga sawaabka ah aqoon ahaan inuu ka hayo waxaa la rabaa inaad qaadato ama aad maqasho cadaawadiisa diineed yay ku indhatirin hadduu wax faa'iido hayo ama xaq hayo inaad qaadato taasna waa qodobka saddexaadoo hordhacay waxa weeye diintu waxayna bartaa mar walba iyo qur'aanka hadyigiisu inaynaan dadka si guud ahaaneed iyo isku qaadid aynaan u caayin ama aynaan kulligood baatil ugu xukumin waxaa la kala reebaa waxaa la yidhaha tacmiim baa carabiga lagu yidhaha ama waxaa la yiraahdaa afka ingiriisiga generalizationku waa qalad weliga tacmiimku waa qalad si guud ahaaneed reer hebel oo dhan waa reer xun markaad tiraahdo dembi baad ku jirtaa waayo reer hebel kulligood ma wada xuma nimankaas ama tolkaas ama qoladaas oo dhan waa dad xun ma wada xuma sunnada ilaahayba ma aha qaar fiican ha yaraadaan iyo qaar xun baa ku jira cid walba marka dadku sida hadalka ay isuga tuuraan laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayra minhum ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay oo na baraya edebtaas wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addihi ilayk yuhuudda waxaa ku jira ashaddu naasi cadaawatuma yuhuudda waxaa ku jira ama ahlulkitaabka dad haddaad buur xoolaa ku aaminto aad ugu imaanayso iyadoo sideedii oo aamina qaarna haddaad shilin ku aaminto aadan ugu imaanayn buu ku leeyahay markaasaan qur'aanka waxaan arkaynaa wa minhum wa kathiirun minhum la odhan maayo kulligood ya wa kathiirun minhum qaar ka mida intooda badan qaar badan oo ka mida
tacbiirkaas quraanku adeegsada marka waxaan leeyahay dadkan walaalahayo iska soo horjeeda oo tartamaya oo dadkan Soomaaliyeed qabaa'ilka iyo waxaan hadda isu haya waxaan leeyahay edebta islaamka iyo edebta diinta iyo edebta sunnadu waxa weeye dad si guud ahaaneed ha u wada jaa'ifeeyeen si guud ahaaneed ha isugu qaadeen si guud ahaaneed ha u wada caayeen si guud ahaaneed ha ku tacmiimin oo ha ku wada sheegin xumaanta iyo baatilka wax kala reeb hatta dad badan oo xunbaa ku jira dad badan oo xunbaa jira qaar badan oo saas baa jira intaas waxaan uga baxayaa hadalka aragtiisa waxaan u imanayaa qodobka aynu ka hadlayno doorashada oo aad sugaysaan jawaabtiisa afar qodob baan kaga jawaabi yaa dooranaysaa horta waxaan idin xusuusinayaa 4 sano ka hor markii doorashada Soomaaliya ay ka dhacaysay ayaan waxaan soo dhigay u noqda hadalkaygii waxaan soo dhigay yaan dooran lahaa yuu yahay madaxa aan dooran lahaa yuu yahay xildhibaanka aan dooran lahaa yuu yahay wasiirka aan dooran lahaa waa kuma ayaan soo dhigay waxaan sheegay astaamihiisa iyo calaamadihiisa qof ma magacaabin sababtu waxay tahay waad ogaan doontaan haddana waan sheegi inaan qof iska magacaaban karin mararka qaarkood waa midda koowaad qodobka koowaad doorashada islaamka horta muxuu ka qabaa xukunkeedusa muxuu yahay inaad qof doorato ama cod siiso ama aad caleema saarato oo tiraahdo kana ii murashax ah sida hadda dad badan social media qolaba xisbi qolaba dad qolaba wax u saaran tahay ya waxa weeye doorashada islaamka waa mas'uuliyad waana ammaano in allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha amaanadana waa inaad sideeda u gudataa waa mas'uuliyad islaamka hortiis waa xisaabta يوم القيامة لوجو حسابنا يو قفك على مسارتي أما عد كسيسي يوم القيامة إلهي بكوسو استجني سوون كل جوبي أو قفنا كل تاجني أو قاونته أو عيرته أو عذابي هل كان سو تاجنته هل كان قوموا قطع أوجد عذابتي أو عد عرسي أبدي كرتو ولال يا أب يا قبيل iyo xoolo iyo tol iyo xisbi wallahi midna u yoon ku tari kare bay waxay tahay wala weydiina codkaaga hebel maxaad ku siis maxaad ku miisaad aayade ku miisaad xadiiske ku qiyaas cadaalade ku qabat su'aal iyo imtixaan ba ku yaal sidee ku doorat maxaad ku doorat marka waa mas'uuliyad والنبي عليه الصلاة والسلام وعيد أدق وعرض إلهي كان لازم يسوه أيو دور الشرع يعطك بحنته وكديبي وحليه النبي عليه الصلاة والسلام حاكم أولي من قلد رجلا عملا على عصابة قف ضد مضح وغدقة أما الدورته أما أمك عابة وهو يجد إساقو هليا في تلك العصابة أمداس أما ضدكاس أرضى منه قف وح وناكسن حلكاس وغفي عنه إليكنا فقد خان الله إلهي بو خيام وخان رسوله رسولك عليه الصلاة والسلام بو خيام وخان المؤمنين مؤمنين تينا بو خيام نعوذ بالله من هذا الغضب مرك هورتا هدي أن حديثك أوجهي نفتي إذا وأنا أوجه أفصلا وح أنا عدك أم بحنا أما recommendation كأن بحنا أما قف كأن شيء أما أنا على مسارنا أما حزب أما عدو ياي وإن دورشوا ومسؤولية وين مركا وين كي هدونه محمد إدريس صلب بيجيسا أما ولالكي أما أباهي أنا وعذاب كما حسنك إسا أنت الدنيا ديسا وهجاجيو والله إن أنا كدورنا إن أنا وعذاب درتي سوقه والله يا جت إن أنا قرن قف كيس ده ما دورن كله قف كستو مسلمين هو إنه ساس نقضه
saasaana laga rabaa qofka muslimka ma aha adiga cadaabtaadii inaad qof kale adduunyadiis ku iibiso taas waa xagga mas'uuliyadda yaa doorashada maxay culayska ay leedahay waa qodobka labaad maxaa lagu dooranayaa maxaa wax lagu dooranayaa qofka la dooranayo laba mid waaye qof aad taqaan waxqabadkiisa ama waxqabad la'aantiisa oo ku cad oo daliil aad u haysato qofkaana diintiisu sidee tahay waxbaad ka taqaan ammaanadiisu maxay tahay waa taqaan xisaabtankiisu seeya waa taqaan kartidiisu see tahay waxbaa ka taqaan ilaahay baa subxaana wa tacaala laab wixii ku jira inagu wixii daahirkan ka hadlayna waxaa taqaan aqoontiisa waxbaa ka taqaan markaasaad leedahay qofkaasu waa u qalmi karaa shaqadaas in heerkaasuna ugu qalmi karaa ama dadka hadda ii muuqda saasuu ka yahay ama qofkaas baa iigula qalan badan intaan arko aragtidayda bani aadamku aragtidiisu iska kooban tahay aqoon baad u leedahay ama waxaad ku diidi aqoon aad u leedahay baadan ku dooranayn waxaad og tahay inuuyan ammaano lahayn waxaad og tahay masalan inuuyan daciif yahay oo xilka aanu si fiican u gudan karin waxaad og tahay inuu tabar daran yahay oo mas'uuliyadda aanu ka soo bixi karin waxaad og tahay inaanu maamulka ku fiicnayn waxaad og tahay xoolo weeye waxaa loo dhiibaya xoolaha inaanu ku fiicnayn waxaad odhanaysaa saasaanan ku dooranayn waa qof aan jeclahay waa qof fiican nebigaan calayhi salaatu wasalaam noo jideeyay arrintaas oo wuxuu yidhi abudar radia allahu canhu nin saxaabiya oo iimaankiisa iyo ammaanadiisa iyo wanaaggiisa uu nebigu calay salam ku qanacsanaa buu laakiin xil aan u dhiibi karin leanno xilku waa wax kale iyo siyaasadda iyo maamul hawl kale u baahanta kafaa'a kale qualifications kale u baahanta ya quwad bay u baahanta markaasu wuxuu ku yidhi markuu yidhi camal ii dhiib wuxuu ku yidhi yaa abaadar innaka daciif wa innii uxibu laka ma uxibu linafsi waxaan naftayda la jeclahay baan kula jeclahay qofka haddee inay isaga himadi gasho ha la yaabin dad badan oo sida abudar ay u gashay oo saxaabi ah damac u galay ha la yaabin qof dam ah oo labada indhood aan waxbaba ka arag iska dhaaf mas'uuliyad oo qaban kareen labada indhood baan wax ka arkay wax u arka aanay jirin laa shaqo walaa cilmi walaa qoxoog walaa karti walaa adduunyo say u socoto walaa wax kale aan fahmin baa wuxuu ku leeyahay iga dhiga aniga boqor iga dhiga aniga madaxweynaha damacu qofku waa iska geli karaa laakiin adigu haddaad taqaano waxaa rabaa aqoontaada inaad wax ku qiimayso aad tiraahdo war waxaanu kuma fiicna ama waxaaba dhici karta dadka inaad tajrubayseen oo adigu aad xoolo la wadaagtay shaqo la wadaagtay waxbarasho la wadaagtay meel la seexatay safar la gashay shaqo la gashay waa taqaanaa macrifad baad u leedahay marka wuxuu qaban karayo marka doorashadu dadka aad wax doonanaysaa waa laba mid aad taqaano waxqabad iyo waxqabad la'aan waxqabad haddaa ku taqaana waad ku dooran haddaadan ku aqoon waxqabadna waxqabad la'aantiisa aad taqaano iyo karti la'aantiisa iyo ammaano la'aantiisana ma dooranaysid ileen cadaabka ma dooranaysid cadaab adigu isaga dartiis uma gelaysid haddaa u gashana haddii adigaa naftaadi halaagi kaas waa qof aad taqaan midka labaad waa qof aadan garanayn kaas haddii qiyaas inaad wax qiyaasto inaad lugta marna ka jiido marna hormarto inaad ka aamusto intaba way dhici kartaa waayo ma garanaysid haddaad qiyaas ku qiyaastana un qiyaastaadu dee waa ijtihaad waa dadaashay wixii kuu soo baxa baad wax ku qiyaasaysa midka saddexaad waxa weeye mid la yiraahdo dani kubadday xaalad baa waxaa imaanaysa aadan kala dooran karin qof waxqabad leh karti leh aqoon leh hoggaankii la rabay heer ku doona ha noqde
وآت تقانو ما هيسد وهذا هيسا لبدر مid dooro mid liita iyo mid ka sii liita mararka qaarkood xaaladdu taas ay kugu qabanaysa ma aha qofkii rabtay ma aha qofkii ku habboonaa oo la rabay ma aha laakiin labada ku tartamaya ama labadaas adiga kugu muuqda waa un percentage yar bay kala rooyihiin ya oo shariicadu markaa waxay qabtaa kii dhib yar masalan mid xoolaha iyo cirdiga labadaba kaaga xadgudbaya oo kugu dulminaya waa laba daalim soo maaha iyo mid xoolaha kaliya kugu dulminaya laakiin cirdigaaga iyo sharaftaada iyo waxaa kale aan ku xadgudbayn waa kala rooyihiin mid labadaba kaa baabi'inaya iyo mid xoolaha kaliya baabi'inaya xoolaha baaba'aan haddii sharaftii iyo magacii iyo naftii iyo nabadgeliso masalan sharciga islaamku wuxuu qabaa marka wax la yiraahdo akhafu dararayn laba darar baa jira laba dhib ma aha labaduba wax fiican dadka qaarkiis waxay u malayaan mar walba wax fiican iyo wax xun in la kala doorto maya laba xun baan marmarka qaarkood kala dooranaysaa marmarka qaarkoodna laba fiican baa see u kala fiican yihiin u kala dooranaysaa taasna waa in marmar bay dhacdaa oo la ogaadaa taas waa xagga dadka istaagi kara iyo doorashada noocyada ay noqon karto qodob saddexaad waxa weeye qofka muslimka ah ka sokow arrinka ah qofka wax lagu dooranayo muxuu wax ku qiimeeyaa waxa ugu weyn oo aad wax ku qiimaysaa waxa weeye oo wax lagu doortaa waa qofkanu waxqabadka nafciga iyo waxqabadka khaasatan dalal marka laga hadlayo dal in wax la hogaamiyo qofkanu muxuu tari karaa dadka iyo dalka taasna waxaad ku qiimeynaysaa iska ninjeclaysi iyo waxyaala maaragtay yaryar iska sheeg iyo ma aha waxaa lagu qiimeeyaa waxyaalo waaweyn baa lagu qiimeeyaa oo nolosha bani aadamku ku taagan tahay dalka nabadgelyadiisa dadka nabadgelyadooda xagee gaarsiiye muxuu ka qabtay muxuu keeni karaa horay hadduu wax u hayay muxuu ka qabtay dalka halkaas muxuu taray muxuu soo saaray hadda meelaha waxaan ku arkaa maaragtay dad iska xamaasaysan hebel baa haa qofka iyagu xamaasaysan yihiin waxaasuu qabtay oo kaasuu qabtay يعني مال هبلايو شاك كشوبي أو مال هبلايو ما ركت بالك كسيداي وروحان كهذلنا أمد وحقبت كدوي هي لا إيمان أنيجا ما ركتي وحيالا قاربة هالكان غير رأيو حبت كنيني هالكان لجيه إيو محان كوشة تمر بهالك سوق يبي وحاس أي شيء وحاسو حيالا يعني وحوي إسكثانويات بالله الله حال الله يا أمد وحلو قيمة يقضتكو أركي كرو يا war maxaa nabadgelyo ummadaas u hirgalay maxaa qofku meeshuu doono uu mari karaa oo isdhexgal helay maxaa ummadii isku dubirid iyo midayn iyo heshiisiin iyo hal meel u wada jeedin muxuu qofkaas hoggaanka ahi uu wax ka taray ama qofkaasuba uu wax ka taray ciduu doono ha noqdee xagga waxtarka dadka quudkii dadka ay cuni lahaayeen oo dhulka kala soo bixi lahaayeen muxuu noloshooda ka bedelay aniga masalan 5 sano ka hor dakhligaygu wuxuu ahaa $200 200 miyaan wali taaganahay mase horumar baa ii dhacayo 500 baan gaaray 1000 baan gaaray dadka kalena waa ila mid ummadda kalena waa ila mid imisaa shaqo heshay imisaa noloshoodu isbedeshay imisaa gawaari fiican qaatay imisaa caafimaad helay imisaa waxbarasho helay imisaa dalka ay wax qabad baa lagu qiimeeyaa dadka wala dooranayo muxuu qabtay qofkan oo la taaban karaa maxaa taaban kartaa saan la dhihi karaa oo taariikh facts and figures dadka adduunka dhex waxay ku doortaan ummadaha yani wacyiga lihi waa taas wey hadda dalkan turkiga aan joogno yani
طبعا تصالها مركا أسو قادنا ذاتك قاركيس حوغا وحبا اسكي قلدن حورنا شيخ محمد ودن ديسن او دور يلاتن 30 سنة 40 سنة 50 سنة دولة دي ودسنايد iyo dal baaba'san ha isma warma anigu ma waalanahay ma makhruum baanahay majnuun maanahay markaan isbarbar dhigahay war meeshaan wax ka qiyaasayo faham qiyaaska aan barbar dhigayna maaha inaan Turkiya iyo Soomaaliya ama Soomaaliya iyo Singapore ama Soomaaliya iyo Jarmal inaan isbarbar dhigayno maaha waxaan isbarbar dhigaynaa sanad maxaa la qaban karaa oo suurtagal ah meeqa caqabado ayaa taala kan waxa weeye halkiinu keeni karaa kanuna jawaab uu keeni karaa taas xagga quantity-ga quantity-ga iyo waxa ka fiirinin meeshaan wax ka eegayna faham waxa weeye qofkaanu talaabo qaaday kanuna kun talaabo qaaday laano imkaanaadkiisa iyo xaaladiisa ka weyn kula mid maaha kun talaabo qaaday ma gaari kartid laakiin adiga laftigaagu ma meesha taagantahay bis talaabo qaaday 10 سنة كور ماشي تاجنت ما تاجنتها مسه طلابة ماشي لقى حساب طبعا هالقاس وحلاقي قياسها تاس فهم مركا مثلا تركيا مركيتي دولة باكور رئيس واصح حزب باجوجي واصح حزب اللي CHP بحكومة جريد ذلك حزب الجمهوري اللي يرى حزب الجمهوري حزب اللي يرى أي حكومة جريد ذلك أو ما مول جري ويا نمن عصب بايمي لكن ما كاسو قرشة يوتين قرشة معينة يوتين قرشة ذنوحه كل سنة وحقبه وحسمي هذا وحقبه وأمضها أركته أيوه كل سنة قرشود صاص قرشود بس ولذلك إردوغان إنتان حكم كإيمان بوحو سيدي يا صدي صدح بقل أو مشروع فايلات كيدي بديار سنتها واستيقي قري سنتها كورنتالا جدكا بابورت ترانسبورتيشن دكده عافيمات أرضينا جامعة مد والبا ملف بولي وحو كقبن لو عده ولي حكم ما قبن وقويا حكم ما قبن وليه لكن ما ننتو حكم كتبوه وحو الربا وحو فلين لها ويوعدها وحو الربا ويوعدها أدونكم مركا وحو حكو حسابية وحكو قابتها وحبدلت ninkaas laftigiisu ra'iis baladiyu soo noqday mayor of Istanbul buu soo noqday intaanu prime minister noqon waayahay mayor baatay adigu agoontaada hadda magaalooyinka Soomaalida oo waaweyn meeqa mayor sanadkiiba soo mara dhowrkii sanaba meeqa the last 15 years 15 sano oo dambe adiga hadda qiyaas meeqa mayor soo maray isbedel la taaban karo anu waxaan ka hadlayaa هاي شيء إننا من الهبلاية من الرجل حيال مارتي حقنا شهر لقى عبية حقنا مارتي بجاج القراعة هاي شيء إننا ترانسبورتيشن كذا مقالة واحد مسك بالدليل كهرباء هذا واحد مسك بالدليل بيه هذا واحد مسك بالدليل تعليم هذا واحد مسك بالدليل نظافة القشم هذا واحد مسك بالدليل بسم هذا واحد مسك بالدليل دخل قدتك هذا واحد مسك بالدليل ما نفعه عطابته قاري بس أول قراء عيو مسك بالدليل واحد qofka muwaadinka ay u dareemi karo inuu shalay uu maaragtay transportationka iyo bajaajka iyo BL-ka iyo maxaa uu kaga bixi jiray maxaan ku sheegay intaas oo lacaga maantana ay kaga baxdo basaska uu ninkan mayorka ay sameeyay intana ay kaga baxdo ama shirmaadkan ay kaga baxaan hal muxuu keenay baa lagu xisaabiyay marka Erdogan waxay ku barteen Istanbul markii uu mayor ahaa intaanu prime minister noqon ayaa lagu bartay سند جديد بمجالي واحد بدن كبدلي والسند جديد لا بس سند جديد بمجالي واحد كبدلي درت أبو حبس وقال كسره صدح بقول أو بروجكتي وأضيع سنة وحقبت هذا أي بني آدم كو عقل بوليه ورانو شري قاري أن راعه مهلي جري هذا بصص كيبا فوضاضي ورانو تولد يجيب أن آلي جري أما بيرتي دي ودعان أمر وما أنا هلي جري لامي بان مرا هذا يا لامي بان مرا أو أن ساعد يقول قاضن قبل بواحد تري بان حصوصتا جورنال كأنك آخري اسطنبول جوكتا قبل إسكتي مقاون
oday Erdogan aan xataa mabda ku waafaqsanayn markaasay tiri doorashada soo socota yaa dooranaysa hotelkay joogtaa markaasay tiri waxaan dooranayaa Erdogan baan dooranayaa afkaartiisa anigu ma jecli laban xisbihi laakiin isagaan dooranaya maxaa dhacay xataa hooyaday waxaan soo siyaarin jiray bishii hal mar waayo wadad meesha fiican ma lahayn haddana jimco walba waan aadaa jimco walba waayo highway baa laga furay jidka mar uu ka hadlayay wasiirku 4 sano kaliya ay joogeen ee u horeysay ayay waxay fuliyeen wax ku dhow ilaa 7-8 kun 9 sano gudahood 15 kun oo kiiloomitir oo dariiq asfalti ah bay fuliyeen 15 kun iyo 500 2012 way hadda way ka korodhay 2002 way qabteen waa 10 sano ma waliba ka yar 9 sano 2003 horena 60 sano wixii la fuliyay waxay ahayd 6,100 kiiloomitir wadanka oo dhan bay ugu yimaadeen oo kiiloomitir waxay fuliyeen 9 sano gudaheed ma 40 sano 9 sano gudaheed iyo waxay fuliyeen 15,500 oo kiiloomitir macnaha 15,500 oo kiiloomitir waxa weeye walaal hadaan kuusoo koobo ya Soomaaliya dalahan oo hadda maartay degmooyinkeeda iyo magaalooyinkeeda 80 gobol weeye Turkiga 80 gobol weeye 80 gobol annaga waagi xataa dawladii hore dhexe jirtay 18 gobol baa 80 gobol baa la isugu xirayaa highway lagu xirayaa oo meeshaad u socon jirtay maalin 12 saacadood baa 3 saac loo soconayaa ama 4 saac loo soconayaa mar uu ka hadlayay bin Ali Yildirim wuxuu yiri sanadkii waxaanu fulinaynay 1,500 ilaa 2,000 oo kiiloomitir sanadkiiba hal sano waay ya marka maxaa dhacay jid marka la dhiso jid kaliya maaha iska dhis dib u heshiisiin waay soo hadda dib u heshiisiin kama hadlaan qolooyinkan siyaasiyiinta ah oo ilaa 20 sano soo lagama hadlayo dib u heshiisiin maxaa dib u heshiisiin macnaha war jidka isaga sameeyna dib u heshiisiin adikaaga baana dib u heshiisiin ummadan ummad isku mid ah marka uu goday ka soo dhaqaaqo gaarisana ka soo dhaqaaqo muqdisho oo subaxdii alwaqtiisi 3 saac badaacadiisa ku keensan dib u heshiisiinta uu kaaga baahan yahay maxay tahay ii sheeg adiga maxay tahay iiga sheeg waa luqadiisi waa dalkiisi waa dadkiisi muxuu kaaga baahan yahay wuxuu kaaga baahan yahay male wadadu mari la u sameey lima lam tusawi lahu tariiq jidka maxaa uu sameeyay markuu ka hadlayay wuxuu yiri ninkaas waa ninka wadanka intiisa badan wadooyinkiisa dhisay wuxuu yiri jidku ma aha buu yiri 1,500 oo Yurub wadamadeeda ka timi u khudbaynaya iyaga la yaaban war sanad gudihiis sidee lagu fulin karaa 1,500 ilaa 2,000 oo kiiloomitir injineerada weydiiyay sidee lagu fulin karaa Yaajuuj wa Maajuuj miyaa dadkan maxay say u shaqeynayaan waa dad wax ka go'an yihiin oo hadaf leh ujeeddo leh way marka wuxuu yiri jidku waa xadaarad buu yiri jidku waa isku xir bulsho yiri jidku waa dhaqaale kororin buu yiri jidku waa shaqo abuurid buu yiri jidku waa maalgashi kan ugu faa'iido badan buu 30 bilyan oo wadooyinkaas nagaga baxday wuxuu yiri 4 sano ku soo noqonaysaa qiyaasta sanadkii 1,500 oo kiiloomitir ma taqaan aan ku soo fududay muqdisho ilaa meesha la yiraahdo Kismaayo waa 480 kiiloomitir waay soo laba magaalo oo waaweyn ma aha oo Soomaaliya ku yaala muqdisho iyo meesha la yiraahdo Jowhar waa 90 kiiloomitir waay 90 kiiloomitir waay muqdisho ilaa beled xaawo 500 kiiloomitir waay 500 kiiloomitir oo baydhabo aad marayso oo luuq aad marayso oo buurakaba aad marayso oo walweyn aad marayso oo intaas soo degmo isku xiraysa ayaad maraysaa ogow imisa bulsho uu isku xiray jidkaas imisa dad buu isu keenay dhaqaalahooda guurkoodi tawaasulkoodi iyo isu imaatinkoodi isu socodkoodi nabadgelyadoodi deegaankoodi waxa ka daran jid markii meesha laga furay
hareerihiisa oo dhan deegaan buu noqonayaa waa la degayaa magaalooyin cusub baa samaysmay marka qadiyad markaan ka hadlayno maxaa infrastructure-ka war dowladuhu dadqa waxay wax ku qiyaasaan dadku shucuubtu waxay wax ku qiyaastaan infrastructure-ka biniya taxtiya carabta kaabiyaal dhaqaale baa la yidhaahdaa cisbitaalku hal cisbitaal waay oo dhammaystiran wuxuu keenayaa ummadda aaggaas joogto oo dhan ma aha soomaaliya keliya kenya in laga yimaado etoobiya laga yimaado meel walba laga yimaado oo caafimaad loo soo doontuu keenayaa dhaqaaluu keenayaa isu socduu keenayaa caafimaaduu keenayaa shaquu keenayaa lacagna waa keenayaa wuxuu ma aha keliya mashaariicda horumarinta iyo dibdhig gadaal baan ka samayn doonaa qolyaha dowladaha ayaan weydiiyaa kuwan iyo kuwii horeba maxaa dhacay wax loo qaban waayo maxaa dhacay isbitaal ma jiro maxaa dhacay jid ma jiro maxaa dhacay koronto ma jirto maxaa dhacay biyo ma jiraan maxaa dhacay transportation iyo basas iyo diyaarad ma jiraan maxaa dhacay waxaasoo dhan ma dhaqaaqi kari waaye ilaa 2000 ilaa yowmina hada maxmiyaa la qaban kari waaye hal tallaabo xataa ma la qaban kari waaye ما وحوي قرب على سبينا مركب بركي دتك قيامها آذان مياه سومالي جنريشن لنا بقول كسر أنت قيامها آذان مياه ما حكم ليه المياه هنا أرجنو مياه أنا هنا كل يوم حتى حكم ليه المياه سيد بش بني آدم كبشر كسر النوري هنا هم نولان عروت يلا أتليست يوم نولان مياه أنا كل يوم كده حكم أولاد أنا كل يوم حكم أولاد أنا كل يوم مرة بدنا سوقها هذا دور الشمال مركز كده عايز بونتلاند واسوقه بونتلاند ما قبل واي قبل ما قال سوق عفتي سكوا دافع قرار حق يدي حق كان يسي فريس دور الشمال سوق كمان ده دورها تيك ورئيس سوق كمان ده تيك سيرتير سوق كمان ده هرديه يحافون حاجه كطلع ده مدحوينها بونتلاند كي هوريه كانكو حيه ويديه علول حاجه كطلع ده ولا اسمتي حاجه ومرتاد حاجه ومركرتا حابه حاجه ومركرتا جيسري حاجه ومركرتا قندل حاجة أمري كرتا ضد كذا محي كنوا ليه حاجة صامرة قبل هلك أكو حنو سنة أما كوف ولا ليس حاجة صامرتا مي شيء كرتا مركا هذا أنا كل جي وحلة تاجنتهن وإذن لا يابا والله صومالية إن بدنوا إذن كم بدوا والله يابنا يعني وإذن لا يابنا إذن كان إذن لا يابنا ده اللي يردين الله يابنا وحبت جرمل وجوجا إنجليز وجوجا مريكان وجوجا أنا ودانا أنك غير هبل مرشح يابا أنا وهاب مرشح الظهران الجور غير هبل محوك ترى إيش شيء كذا ما الدنيا دي سجى عيال أدو آخرها هذه كدورة نسا ما بابا أدل كاجا يدد كاجا عيال السجى كج عليه سنسا محوك العوق شيء من لا نفسه حكاسي ما واحد كانوا محاد كدورة نسا محوك قبطي مش شيء كذا فاكتس فيجرز بقول كيلو بريسه وكذا كسر بيجي وريرا وبيبي لما جوانو لقى سوق هذا هيئة هو WFP أيوة كان يعتبر بقول كي جوان بو قيبي صح واحد في عن بقول جوان وقيبيه متكي حليب وكفي عيه لكن أنا هذا واحد قال لنا جوان إيو بقول جوانا لكينا إيو مشاهرة حقا لسيي محان كوشا جاي أسكرتي إيو محان كوشا أولنا ما ينقالن جرين مشاهر ما ينقالن جرين مشاهر بسوا حقا هذا ما هي محسو قولي مشاهر بسوا حقا هذا ما هي حقا ديوه ما قرأت لكن أنا وحن كهر لنا وحقبض لا تابطه وي وحن ربنا إنا نوش شيكتان هادو ينقفكم مركا إيش شيكين محان كو دورتاني marka dadku waxa lagu doortaa oo aan dhihi karaa waxaas ayaan qabanaynaa haduu cusub yahayna waxa la yiraahdaa haad burhana haddaad socotaa sooma hadda koyti okay itus maxaa balaanaysa sanadkan u horeeyay maxaa rabtaa inaad qabato meeqada kala rabtaa inaad dhisto meeqa kilomitir rabtaa inaad fuliso meeqa cusbitaal dadkii waa la eedaan waa baabeen covid-19 hadda markay timi ayaan ba aragnayo ay aan qaawanaanay maradii baa naga dhacday مرضي ما نقدر عضيده حقادي مرضي حقا أن عورة سارينا عورة ما نعضي يا وكنا مقدسو تذكي واقول هرجيسة تذكي واقول قالوا تذكي واقول السطاركي جود أما الدولة اللي هاي حبلوا ما هي نفلة ما موجود مركا تدي هو الصومالية أنا وايد الله يابنا هبل بانتورنا والهبل بانتورنا يا أنت اسكت ديسان
iyo hebel baan wataa horay wuxuu kaa weydiina ha adiga horta ma waxaa la jirtaa hebel mise waxaa la jirtaa hebel adiga ma waxaad dooranaysaa hebel mise waxaad dooranaysaa hebel wani waxaa ka hadlaysaa war anigu dal baan dooranaya war anigu dad baan dooranaya war anigu Soomaali baan dooranaya ma doorto hebel iyo hebel iyo hebel ma doorto Soomaali baan dooranaya dalka Soomaaliya ee khusayya muqdisho ay khusaysa jawhar ay khusaysa baydhabo ay khusaysa maxaa laga qabta kismaayo ay khusaysa maxaa laga qabta beledweyne maxaa laga qabta boosaaso maxaa laga qabta taasaan anigu ku xisaabtamaya kuma xisaabtamayo yuu yahay ninkan meesha taagan anigu colaadna uma qabo xumaanna uma qabo mana ammaananayo mana xumaynayo laakiin waa la xisaabtamaya maxay qabatay maxaa keenaysaa taasaan kula xisaabtamaya haddii aan arko indhahay ka arko haddeeraan anigu waxaan la yaabaa aqoon-yahano profesoro dhakhaatiir injineero kule anigu waxaan wataa hebel adigu yaa wadataa war anigu waxaan wataa Soomaaliya wataa anigu war anigu waxaan wataa Soomaaliya isbitaaladeeda aawe war anigu waxaan wataa Soomaaliya dadkeeda dhulka ku dhimanaya dakhligoodii aawe GDP-goodu income-koodu waa $100 boqolkiiba 80 dadka Soomaaliyeed war anigu waxaan dooranayaa qofka idhihi kara anigu GDP-gaas ama dakhliga qofka mu'addalkiisa average-ka waxaan u soo qaadayaa sanadka u horeeya $500 aan keenaya ama $1,000 aan keenaya adduunku wuxuu ka hadlayaa $50,000 sanadkii baa laga hadlayaa anigu waxaan keenayaa maya sanadkan 2,000 baan keenayaa qiyaasta meesha aan wax ka qiyaasayna halkaas waaye walaalayaal ha idhihin waxa imoodin inaan qarjafaayo oo Singapore iyo Soomaaliya aan isdhinac dhigayo ama South Korea iyo aan isdhinac dhigayo ama Turkiga iyo Soomaaliya isma dhinac dhigayo xagga quantity-ga waxaan isdhinac dhigaya quality adigu waayahay isagu hadduu 50,000 dakhligiisu noqday adigu qofkaagii 1999 soo arta ma ahayn 2000-kii ha meeqa ka dambeysay 2020 meeqa dowladooda timi محوها عبد القاسم صلاد محمد كوشي عبد الله يوسف مياكو إيجي هو ها 2004 تكلم شريف شيخ أحمد حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماجو still the income is the same وحسب تاني قدر اسميها مكاني كين دورتا مركز سيدي ويدين إيسا كين دورن إيسا سيدي ويدين إيسا جوابتي دوابة تقاناي سيدي ويدين كرتا ما بيويدين كرتا بحق بيقوم لي دينا يويديش ماذا يقول لي الحق جوابتي إذا واتقانا جوابتي إذا واحد كهليسا إمسا كورس سوق قاضي أو كسوق قاضي $100 أو جارسيي قفك الصومالي مسلم بني آدم يا حرني ماذا إلهي سيي إلهي سيي كرامة السيئة ولقد كرمنا بني آدم إلهي إسلام كدقي قاعدشو إنو قرنتو وقري عريشة وعاصمة الحلية كنجرو مركز إلهي كيما دورنا سامية من ما دورنا كلها أريها قبيل كي هي الكي مستوى هذه الله ليس وحاولي بالله يابا دلني يردينا وحبرت دلني يردينا جامعة ذاك بحر بريمان خطبته waxaan ku iri aqoon-yahan baa lagu khasaaray aqoon-yahan baa lagu khasaaray magac aqoon-yahan waxaan aqaanaa kuwa ka soo baxay jaamacadaha Malaysia iyo Turkiga ka soo baxay markaas goboladoodii waxa looga dhigay loo dhiibay meeraa looga dhigay dhulka hoostiisa la galay Kuala Lumpur buu soo arkay Istanbul buu soo arkay Ankara buu soo arkay بأي عقل محويه بني آدم كاس ما إيش شيء كتان إلهي يكون داري محويه بني آدم كاس بني آدم قف كاس منيكا أقول يهم كاتكو شيء what kind of أقول يهم بويا قف كاس أدوك أنتو صوار كي مركو دل كيسين إلهي سبحانه وتعالى ضدك وحي وحصو برتان ضدك ذني وحكت بدلال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قفوا حصوا برتادتك سين ودقوا أو يراهضوا ورميشان الجوكتان وجهلي ككعة ورميشان الجوكتان وتخلف ككعة ورميشان أطفردان وجباهير ككعة هل كاسن أقورينا برواقنا سن أقورينا أقوانتا سن أقورينا علمي سن أقورينا قال الربا إنه حصوا برتو وعلى يدكو خسارة قارب بدنو كمدا خسارة وورلوردز بالوشة قيتان وورلوردز
PhDs baa idinku jira warlords min ajli qabyaalad ugu shaqeeya baa idinku jira maxaa wax ku dooranaysaa marka waxaa wax lagu doortaa dalkan muxuu taray qofka dadkan muxuu taray muxuu ka bedelay noloshooda dakhligooda muxuu ka bedelay biyahay cabayaan muxuu ka bedelay korontaday shidanayaan muxuu ka bedelay ma waxaad leedihiin waxaad mar walba ay oranaysaan ha isu qiyaasin turkiya ha nagu qiyaasin sax idinku qiyaasi maayo laakiin tallaabo xataa ma qaadi kari weyse tallaabo miyaad qaadi kari weyse maxaa dhacay isbitaalka ani qabiil ima khusay wallaahi inaan idin khusay waxaa idinkaa ka sheekeeya I don't care about that waxaas qofku waxa weeye maxaa la yidhi qofka yani qaba cadhala qaba wuxuu moodaa dadka dhan inay cadhaysiin qofka xanuunsan wuxuu moodaya dadka dhan inay xanuunsan yihiin buu maraya war adeer ilaahay baa naga badbaadiyey aan ugu mahadinayna ilaahay nooma dhalin nuguma keenin weligayna kuma dhaqo marka fiiri waxa weeye yani maxuu qabtay baan ka hadlay qofku waxaa lagu doortaa waxqabadkiisa haddii uu wali cusub yahay waa la fiiriyaa waa la daraasiyaa muxuu yahay qorshaha maxay tahay aragtidaada dadka Soomaaliyeed maxaad ka damacsantahay inaad wax ka bedesho noloshooda maxaad rabtaa inaad ka bedesho transportation-kooda iyo muwaasalaadkooda ay ku dhinteen oo socon kari waayeen oo ay kala xiran yihiin maxaad rabtaa inaad ka bedesho nabadgelyadooda dhulkooda inay si nabada uga shaqaystaan maxaad rabtaa inaad ka bedesho xogaayana ciidan ma halkaa sameeyey waxaas bay kula imaanayaan war hadda waxaasu waa wixii aan kuu sheegayay waa dani kugu qabatay waay anu waxaan ka hadlayaa qof lagu doorto wax qabad adna waxay iga haysaa dani kugu qabatay waa kugula jiraa oo waaba kula ogola wiyaqa dowladda aan kala soconayn mid dhutinaysa hadday tahay xataa waa iska haysanayna mid xataa yani maaragtay inagoo dhan dhacaysa hadday tahay magacii bay noo haynaysaa waa iska haysanaynaa waxaas waxaa la yidhahdaa dani kugu qabatay laakiin dani kugu qabatayda ilaa meeqa sana ku jiray 50 sano 60 sano 100 sano meeqa rabtaan inaan dani kugu qabatayda ku jirno 20 sano se intaad leedahay turki oo maanta furaysay sida aan hadda Facebook aan idin soo dhigay 45 cisho baa waxaa lagu fuliyey laba isbitaal iyo isbitaal kale oo la dayactiray laba isbitaal oo mid walba 1000 sariirood la dhigayo 430 ICU qolalka intensive care-ka ah uu leeyahay 16 meelaha uu leeyahay maartay highest technology adduunka xataa intiisa ugu badan ayaan samayn karin caalam Europa wa America wa غيرها ayaan samayn karin marka dadku saas u tartamayaan anigu waxaan ku weydiinaa marka anigu waxaan ku leeyahay war 20 kan sano adiga hayga hadlinkii reerkaaga ahaa iyo aniga dawladnimada Soomaaliyeed ka hadlaya 20 sano suurtagal ma tahay inaad meesha idin taagnaato ha caafimaadku meesha sector caafimaadku meesha isu taagan yahay because waagi Cabdi Qaasim yimi oo dawlad muqaddata ay ahayd oo Shariif Sheekh Axmed uu ku xiray oo ay ahayd iyana dawlad temporary ah ku meel gaar ah oo dawladii Xasan Sheekh Maxamuud ay noqotay dawlad rasmi ah 2012 bay ahayd markaas ay noqonayso rasmi meeqa sano ka dambeysay 8 sano waa ka dambeysay iyo mid hadda joogto 4 sano hadda gabagabada ay tahay suurtagal ma tahay in isbitaalkii uu ahaado wixii lagu neefsan lahaa aanay oolin oo COVID-19 markay timi dadku ay neef la'aan u dhintaan isbitaalada dawladdu haysay oo مثلا wax lagu qofkii qalliinka loo sameeyay ama ilmihii yaryaraa ee maaragtay ku jiray meelaha ubaxaanta ku jiray ay maaragtay fuuraan oo marna kan laga bixiyo 5 daqiiqo kan la geliyo bahasha afka loo saaro mid kana 5 daqiiqo la geliyo mid kana 5 daqiiqo la geliyo suurtagal ma tahay alaabtii xataa hay'ada intay ku tabaruceen ay isbitaalada qaarkood wadanka ay dhigeen in la xado oo la gurto oo jinni baa leh isbitaalkan public ah jinni baa leh cidima laha in la gurto alaabtiisii oo la biliqaysto suurtagal ma tahay waxaas inaan meeshaadi laga dhaqaaqay meeshaan kala hadlaya taas waa hadda ay dhihi lahayd war heed 20 ka sano laba isbitaal la dhisay saddex isbitaal la dhisay
ستال وين أو آد تففترن بالغدي سي مقدشو عسبتال كله أو آد وهذا يسمى أو وضن كردن ميرس تلقسو آدي كرو هل عسبتال بالغدي سي هرجيسة وضدكم آدي كرو أنت إندي آدي لهن هرجيسة آدي لهن محدعي أنت إندي آدي لهن مقدشة آدي لهن محدعي $1 billion بيكون بحيانا سوماليدو سيدو ديكرتا على الدولة أو أهل سيدو ديكرتا العقل ما هي ما إيجا كي قادد أو إيجا وبليس اللي هذا عسبتال تركوا وديسيو دولة دودو ما مالقلين حولها ما وضع هيستو يدو فرسموا واي شبان بمالقلي فرانسيس بمالقشتي شركات مارتي بلجيوم مالقشتي هبل بمالقشتي عرب بمالقشتي قطري بمالقشتي نسوبين أنا باهينا مسكية ضدك الصومالية ولا ريالو وضد عدد باهية وضد ديركتور والله فضودها وحبنا كارني وفضودها هل مركب هدوي ماذا ودرقية ومضير واسكقنا أحسن ومساكين وترتيبه لكن أو يندورتا أني يندورتا يأتي يندورتا مركب وحاول حلقود دورتا هرتا إنه يسلا فهم وحكى المدح إذن كجله نكنا نقول هي بنا نوشرح ها أنا هذا وحن ليا دربانك اللي توميو إيه دربانك اللي جراعيو إيه قيلة اليرسة إيه صوحنك كي يري سوشيال ميديا ده وعن ليا وهذا ماذا وعلن مسدد كان دربانك توميا وعلن وهذا كان عادل هاي أنا وكان وطا ما حقولته ما إيه شيء كرته محوقبت ها وحقبت مارتي جنريتر كالكاسو كشري ما حنقول شيء وين أرضي هاي ومارتي هالكاسو يسكون وكفري وروحاس أنا هاي صوتين مارتي يرير كأهل أنا أبغى قبلنا وحاس أنا كبدن قبلنا هي لها جامعة لها كو يلا باتنك أو شعب كصومالي ودي سيبا كبدن واحد شيء يسوع وأنا الشعب دولة ما أي شيء يسوي مستواه يقرأ هذا يقرأ هذا ما حال قبطي ولا تعبان كرا اسبتالada inay saas ahaadaan garmiya jidadku inay saas ahaadaan garmiya nin madaxan waxaan ku iri qolada hadda joogtaa mise qoladii hore ma garanayo waxaan ku iri hal jidis ana ku damaana qaaday Soomaaliya inay ku doorato sanad walba hal jidis Soomaaliya inay ku doorato ana ku damaana qaaday ya Jowhariya Kismaayo isku xirkaliya bas jidka maraya 480 iyo 9 كده شن بقول يلا تموه شن بقول يلا تركضوا واحد مودة الفروق إليه هنا أو برتع عنان وهذا شاينيز حتى هو يقدر يجرملك هل سنة يقول لسايامبا يعوذ بالله لعقت يا دايش لعقت نعيد كل استمام وين يسد الدولة ده بقولة تانبا قار كود بابا نوقو تبرعيبه أنا يا حبك قبسنا وين حان قبسنا سيانكو قبسنا انت مشروع بي كويت كتبرع انت مشروع بي تري انا هنا طاعتك تاي وي لعقت انت مشروع تري قطر وايدين دسيا انت تري سعود وايدين دسيا حال قبصنا maxaan qabsanay waxa kama naqas marka waxa qabad walaalayaal ayaa wax lagu doorta anu waxaan dooranayaa qofkii isbitaal dhisay hadda idin sheeg jawaabta ma helaysaa waxaan dooranayaa kii dadkan dakhligooda wax ka bedelaya dadkan Soomaaliyeed yiraahda سنة كبدلية أما هراي كي أن صوت تجابينا وابد تجابية كاس إنه وحبه كقبل وابد أوجه حنك دورنا ولي أنا وحن قياساتك اسكو قياس منهن أدو واحد كو قياس نيسا ويل كان الأرض يا أما جامعة اسكو شيء أما واحد اسكو شيء قبيلات بملح كامرتي مسكح هذه ويد بولنتي مركز صد واحد كوفي كذا أنا نقول هي هرتا ما حد رأي هرتا ما حد كله يا هرتا أنا شيء سمط يوم كان يكون تعالى ما حد أدوم كله كواساس أنا أركز سوقي ويدينا يا مرات قاط وهذا سمط إنه بق ماشي مجالي غير أدير كيم بماشي الوايا سومالي واقع سمط زارين جت سمط ما لقيس هذا توسع تاولي قرني قبل بيلاطنات بنكون جرنا أصايا كهرتي ومدي كهرتي أدونكي كهرتي قاجة ضدي منيسا حرات بضدي منيسا عذر بضدي منيسا ولما واحد تاجتها ها سمط يدي بهذا كتها وأنا كاسوا ريرهم وحاسوا إن تكتوه قالوا كي يقدم بيا وكل سنة أرين كام حاول حلو دورنا يا قرروا حكورنا يا من كانوا قبلكم مدة لأن حنكوا دورنا قبلكم مدة هاي كانوا ما كانوا أمرنا هاي قبيلك أمرنا حوك وهاي ما بس كحنا ما هلقى سمرسة كبدل أنا وحنقول لك كبدل وواحد يبدل شيء سيد الدين يعقلها يأدونك وحوي قان واحد يبدل شيء يا وحي قبنا يعيدوا دونها هذا ضدك الصومالي ده
محو قوانيا ما كو بديش هذا مرهير هبلا كو جنة تجيسا درير بلدا كو جنة تجيسا ولي ماشا فردينيسا ولا الماشا هذول اللي فردينيسا كمان دقائقيسي وماشي شا عبد الرحمن بشير من دالها صدن سنة أوقفتي سومالي إني سجسي دبوريكتو كدبنا وكبح دونتايو مال في عم بجاري دوته أنا أقول أول الشيخ ونو حرمنا بالشيخ ونقصه قال المدة نقصه يري وقفتم بعيد مركا أدقو سو كمان في عنان الله هنا ترى هذا ورني كانوا ما هرير قول كما ومدلن ها هي لكن سو سومالي ما ها سو قف walaalka iyo gul wadaaga ma af iyo taariikh iyo luqo iyo wax walba gul wadaaga soo ma ha muxuu ii qaban karaa قاربان أركان مرارك قارتود لكن جوابت الضمان قدر دونا مركا وحاد كو حساب تنتان واد كو هوكتين هذا مدحوينياشينا قبل كركا صوب بلو إلى هوس أنا قفنا مقعابه سيدي دابا مجي علينا مقعابه هدي النبي عليه الصلاة والسلام باصاها ما بال أقوام قفك يسوي هرفر ديا أيانو مقعابي جرين وين أول كرينو مقعابه ومن يراه قف كان قلت كان سميه لكن حرية دتك صار سمينيا ما بال أقوام دتك صار سمينيا أنا يكون طالع قرب مركا وأدبك دعوة أساس واي مركا نقول عندنا مم عابي لكن قبل الذين عاد وحكوا دورتان ونمنك عاد مارت دورتان وأنت صجر أتكسر الدبع السن يا ما إيش شيء كرتان واحد أي كسمية ما إيش شيء كرتان هل إيش شيء هل كيلومتر وجده يكون درين إيش هل اسمتال إيشك هل مقالة كورنتو قليانو يرادين دادكو واي أجوانتها كورنتو بلاش أما وحي ركو قاتان ومشروع يرو لفريكري إيشك لابا مدوي إناني كوهمين إيا إناني قرانين أو أبوندر كهيس إناني كوهمين وهمي قاسوهين ومدانو بدنا علاماتك كم مقدر دفتت وحكوا كهمينيا يو كرسيديسا لعقتيسا إسقى مجيسا وحيسا أيو كهمينيا كما همينيا دت كان سيكون تجمع كوهلا دت كان مجالنا أنا ألحق كنت سيبير بقبو معان كوهلا دت كان سيوح برش أروتو كوهلا دت كان يا سيسمتان بداوي ممكن أنا أو ير سيكوهلا ما هو حكى لنا اسمتان بلايين كمان لنا ورث 8 مليون 20 مليون 6 مليون والدولة دقيقة أنت شيء سنة أتركتان خليج كساد ورديسين وين ورديسين نفتي ونوكنتن إلى الله باتصنم عيبه نندن أو ملحوينه با أنتوا أتجي نن بقرة أو خليجي أنتوا أتجي بوحير معاكم قبطة مركزين ورقدوا هل كان حول هذا يوسف حول ذهبشيل مركزين ورقدر ذهبشيل إيو أنا وحكم حولناه بنكي قاعد سنترال بنكي قاعد أو بنكي قاعد دحاء بنكي أو إنه دولة حوالي هذا كواسا ولا ربا وحي ربان إلى دورته وحي ربان إلى دورته تطبع دورنا وقعبا ساتلي بيلي سو مدمرك هلاك جدي إيده قدنيسا قبر جدي إيده سومالي إن بدن وكمدي والله بالله وعمليسا قبر جدي إيده قعنت هذا كقدرته قبر جدي قعنت كقدنيسا وإحنا الجلية يقول كذا مركز الميزك السياسي على لقطة أنت كل ريحه بوجودك كسي ريد نك عارف كا وحوي هذا لو ساكم الريد متكلم تاعي من مركز وحوي محاربة محاربته بلاد محاولته قرش محاولته وحموته وتمره صدم قفله دبد دايه هوتيل كان سيحلان وحوغا هبينك عشايان بيرن ور انكار idin ku dhacday hotelka anaga idin ka bixinaan ma noo sheegtaan hadeedina hotel idin ku horeyso 5 star ma noo sheegtaan markaasuu yiri maxaan ku qabtaa asuu yiri warqadan dad baa ku qoran magaciya liiska iiso xajisi dadkan iiso xajisi ninno boqoraho yani halka bilyan iyo 2 bilyan iyo 5 bilyan iyo 10 bilyan iyo baa waxay la tahay tib bay la tahay magana tibta ma taqaana bakshiish lacagta bakshiishka la bi waa nin boqoraho ilaahay adduunyo u dhiibay oo waliba Soomaali jecel haddii aad tiraahdo 10 bilyan balaankeedii waatan aniga ha ii dhiibin lacagta caddaanka ah aniga ha ii dhiibin ee adeerow waddankan iiga dhis intaan iyo intaan aad tiraahdo buu diyaar u yahay safiirka waddankaa joogay baan weydiiyey markaasuu yidhi wejigaana madoobaaday sheekh maxamed wejigaana madoobaaday wejigii baana madoobaaday wejigii baana madoobaaday haye marka
عد حتى أدو بلانكي يقرشيه وحي عاوضته عد ما وينيسد دين يدق مدين نقطة وحن كانوا لوينين ومدى هذا أدو ضد كاغا لفتي قوضة إنها ترى مال قشرة إذنكم مال قشرة ضمانات دين السي أمانة دين هكا أركان حتى سان شيء إلهي بين كل داريه مقالة كسماية ومقالة كوبا وين ودكتة إيو مقالة مقدوش أفر بقولي سيدات باكر حيرنا ما قال الله صعد أحد ما قال الله مرا أحد هاي يقول لي هنا شباب حقه يستوي شباب حقه يستوي روايات كاس حقه يجي وحاس روايات بنو قانون يا لما واين إن ماشى هدين للدونو إن جد كان يسوع دن حرس راديو أنت لسه يسوع دن أفرت بقولك كيلومتر أسكر بانكو فين كرنا صدق كون حقي آلين أو يدين قرن حقي آلين أفر بقولي سيديتن بيوم ده زوج الحيران تاعي شن بقولك كيلومتر وحن قياس إنجنير هذا ويدي إلى أنا ما هي إنجنير هذا ويدي ورولا ريالو مركي أني منك تركيا دراسة كسمية جدت كودا أي لسان بن علي يلدريم وحويري شن يصدم بليون با نجاج شيء شن يطمنك كون أو كيلومتر شن يطمن كون أو كيلومتر واحد صدم يشن بليون أو دولار أيام نجاج شيء أن كو إنفست جريني ويا نجاج شو مدينة كو إنفست جريني we invested 35 billion مركا أبو كلا قايبي صو وحين نقول سام عدل average بويري $2 million هالكي كيلومتر أو لما جدا أصعده دينعان لما سير أصعده ما سيد ما ترى دينعان لما سيد ما أصعده دينعان لما سيد لبهاد سيدا هو كلا تقانان يا لبهاد بعد دينعان أصعده دينعان لبهاد أصعده مركزا waxay noqotay average jidka saas highwayga u ah $11 million oo halka kilometer costigiisu niman engineer ah oo khubara ah oo Soomaaliya baan weydiiyay maaha hal ilaa 3 baan la hadlay waxaan ku yiri nimankan Turkiga ah costigan waa kan waxay leeyihiin annaga waxayna costi garaysay $2 million halka kilometer innaga dhulkeena meeqay costi garan kartaa haddaan rabo jidkan inaan dhisto 500 kilometer anigo waxaan ku qiyaasay 1 billion baan iri according to the estimation of the Turkish market Turkigu sida ay u qiyaaseen waa 1 billion haddii midkiiba aan ku qiyaasayno 2 milyan ya 1 milyan bay noqonaysaa waa 1 billion marka injineeradii waxay isku waafaqeen war costigeena Soomaali ahaan ayaa ka yar bay yiraahdeen Sheekh Maxamedow costigaas Turkigu ay waxa ku bixisay dhowr siyoodba waa midda koowaade ka badbadinta iyagu hadda ay ku jiraan annagu ka badbadin kuma jirno waxaan rabnaa daruuradii horta inaan helno waa laba costiga waa controlina mar midda labaad dhulkan aad aragtay oo buuraha ah oo godadka tunnelada laga bixinayo tunnel 5 kilomitir soconaya dhulka hoostiisa la qodayo buurta hoosteeda inagana ma jirtee dhul bannaan oo sida isaga Ilaahay u sameeyay ayaa dul maraysaa bay way ka fududahay ma ujeedaa sidaas darteed annaga 1 milyan hadday u badato kilomitirku half of the amount bay ku kacaysaa marka jidkaas wuxuu iiga xiran yahay 500 milyan roughly haddii wax ka kordhaana waan ku darayaa war 500 milyan company inta u samaysid company Soomaaliya riski cid kale oo maalgelin qaadanaysa haddaanay jirin war heede xawaaladahan iyo bangiyadan iyo ganacsatadan ma hadday 20 milyan 5 milyan ku maalgashadaan oo halkan bari samaystaan 20 qof aad u baahan tahay oo min 20 milyan ku darsadeen ma wax kale u baahan tahay oo iyagu maaragtay dalkoodii ku dhisay lacagtana kala soo noqda 30 sano 40 sano loo saxiixo iyagu qaata waa xal kamid ah xulusha sheegay oo aanay ahayn faylkii iyo daraasadii nimanka injineerada Soomaalida ku diyaariyeen ilaa dadku waxay wax ku bixiyaan ama dawladuhu xataa deeq kugu siin karaan waxa waa in la ogaado inaanu jeeb gelihayn ee horta daraasad kaamila ama study dhammaystiran waa ina wadataa oo cad oo professional ah saas darteed dalalka qaarkood professional study-ga bay ku bixiyaan $100,000 $300,000 adiga waxaad behelaysaa injineero Soomaali ah oo kuugu tabaruca inay daraasadii ku diyaariyaan oo professionals ah
qaarkood aniga madaxda Soomaaliyeed hay malaynina meel cidla inaan ka hadlayo madaxda Soomaaliyeed qaarkood kuwa hadda jooga iyo kuwa hore ka horreeyay iyo kuwa ka soo horreeyay waan ugu naseexay waan u sheegay afraadan xataa u sheegay war engineer Hebel oo wadankaas jooga engineer Hebel oo halkaas jooga engineer Hebel oo halkaas jooga wuxuu idin ka caawin karaa wax aydinan boqolaal milyan oo lacag ku heli karin waa nin Soomaaliya oo khibrad leh oo way aragnimo leh oo adduunku u ictiraafay dadka Soomaalida ah dad nuxur leeyihiin ما بلاش بالوسي أحمد حسين وزير كندا إنه كنا نقضه ما بلاش بيكوه شيء الآن هنا كونغرس كمريكان كفريسته ما بلاش بيكوه شيء قبلنا كلا إسرائيل جوكت أنا كويشوا ما بلاش بيكوه هلان وينش يقبلها جوك إنجليز أنا كوه هلان ما بلاش بيكوه هلان قناع ستة وين كيا كاه قناع ستة وين بليونيرز كاه ما بلاش بيكوه هلان تذكر صومالي الصاد أفريقيا جوجا ومارتي كم مقضى ما بلاش بيكوه هلان كوه زامبيا جوجا كوه بروندي جوجا كوه رواندا جوجا كوه يوغندا جوجا كوه ميلبا جوجا صوت صوماليا ما ها سو ريسورس يا جاي ما هذيك نكا كان مدحوينها شيغناي ريسورس يا جاي ما يهم سما ما حد غبا انت بلجيك ما حد غبا انت هاي فرنسا ما حد غبا انت هاي اماراتس ما حد غبا انت هاي سعودي هاي دميان علاقاتكود كون ولاalaha Soomaalida ma tusisid balaanki u keentid iyagaba ku afahmaya oo ku luqad garanaya oo dalkoodii garanaya oo dooni oo hadii xataa khasaaran dalkoodii ba kaga khasaartay laakiin jid baa lagu dhis isbitaal baa lagu dhis walaalayaal wala waayay wax sababa iyo wax lagu qabto bal hal xisbi oo keena hal xisbi keena oo waxan aan ka hadlaayo keena waa idin la dooranaya hadayna ahayn anigu dal baan dooranaya qof aan dooranaya kuma jiro dadka hadda meelaas jooga hadda idin sheega runta ama hay idin ka nixiso ama yey idin ka nix anigu waxaan dooranayaa qofka dal iyo dad iga gadaya baan dooranaya dakhliga qofka Soomaaliga ah intaanan kor u soo qaaday halkaana soo gaarsiiyay halkaasana gaarsiinaya qofka Iiraahda ayaan dooranaya qofka Iiraahda qofka Soomaaliga ah inaanu u baahan Ethiopia iyo Kenya caafimaad inuu u aado India inuu u aado mahalkii inuu u aado baan u sameeyo ku investigareey 500 milyan دين يدق investment ماشان ككينبا كاسان u sameeyay qofka Iiraahda kaas way kan anigu dooranaya kaas way kan dooranaya laakiin kan Iiraahda lama sameyn karo horaan u dhaafayaan wax qiimo waqtiga kale yaamto horaan u sidaafay salaam alaykum wa alaykum asalaam bal xumaan uma hayo man nabci ma la dagaalamayo ma huwa ma halkeenay laakiin anigu waxaan ka xisaabtamay waa danta caruurtayda waa danta generationkii waa kuwa iga dambeeya waa dadka Soomaaliyeed waa sharafta Soomaaliyeed waa magaca Soomaaliyeed waa dalka Soomaaliyeed waa dadka Soomaaliyeed marka qabyaalad meel idin ma gaarsiinayso hadda la idin sheegay waxa hadda aad dadka ku wadataan iyo madaxda aad wadataanna idinka qabrigiina ku qodanaya gacantiina aad ku qodanaysaan qabyaaladu wax lagu dooranaa ama wax lagu doorto ama sideedaba wax lagu xukumo horaan u sheegay muxaadaraad badan ee qofka aqligiisa dhaawacda qof baad la hadlaysaa waxaad leedahay war maxamedow walaalow saaniya saan waxaad leedahay maxamedow walaalow magaalo Hebel waxaynu rabnaa caruurteedii inaan waxbarasho saa ugu helno dadkeedii mugdi bay ku jiraan caafimaadna inay helaan bal isbitaalna ay helaan bal agoontiina meel inay helaan baan ka hadlaynaa markaas wuxuu ku leeyahay ya wuxuu kugu jawaabayo ma taqaan alaaska maxaa laga sheegay warheedha waxaan kaala hadlayaa gobolkaagii magaaladaadii walaalow saan iyo saan ma u qaban karnaa markaad tiraahdo waxaan rabnaa isbitaal inaan ka samayno wuxuu ku leeyahay masnaca kabaha China kabaha sameeya wuxuu ku yaalaa Guangzhou war Guangzhou kalama aanan hadlin horta may maqlaysaa horta warheedha may maqlaysaa qofka qabyaaladu dardartay waxa ka soo baxay xataa ma dhageysana dhiga uu kugu dhageysto xataa male isaga balaayo ku qafilan tahay balaayadu ku qafineed buu qaacay kuma maqal hada waxa sheeg madow hada tiraado cadaan uu maqlay cadaan hada tiraado madow uu maqlay cagaar hada tiraado buluug buu maqlay buluug hada tiraado cadaan buu maqlay maxaa dhacay maskaxdii baa qafilan way xiran tahay maskaxdii baa xiran maxay ku xiran qabiil bay ku xiran qabyaalad baa xirtay
walaalayaal waxaan idinku yeerayaa Soomaaliyeed waa dardaaran waxa weeye ka fura madaxa ka fura qufulka ka fura khaasatan dhalinyarada wax baratay ka fura siyaasiyiinta Soomaaliyeed na waxaan leeyahay iska daaya kursiga waa iibsanaya madmuun way jeebku igu jiraa lacagtaana ku bixinaya intaanu xildhibaan baan haystaa intaanu maartay dawladood baan haystaa qol hebel baa i wadata qol hebel baa maartay isiinaysa maxaan ku sheegaa waxaan ka sameeyay inta iska daysaan walaalayaal hal mar one time dadkiina ka doona dadkiina wax qabadkooda ka doona inay idinku doortaan wax qabadkaaga inay kugu doorto wax qabad la taaban karo loo imaam wax qabadkana waan sheegay waa albiniya tahtiya infrastructure waay iyo nolosha dadka waana tan islaamku uu ku qaybayo nabadgelyadooda caafimaadkooda waxay dhuunta mariyaan iyo transportationkooda iyo noloshooda wax ka bedel haddaad ka bedesho in yar xataa waa lagu ictiraafaya annaguna waa ku ictiraafayna maxaan kugu diidaynaa oo qofka Soomaaliya aan sameeya waxa kan wax bedela oo aan u jeedno maxaan walaalayaal ugu ictiraafi weyn war intaasoo cusbitaal buu dhisay war intaasoo jid buu furay war intaasoo transportation buu idiin sameeyey meydinaan socon karin war intaasoo dekedood buu idiin furay war intaasoo maaragtay adduuna buu idiin sameeyey yaa waa markhaati kacayna maxaa ugu markhaati kaci weyn laakiin haddaanan waxba u jeedin maxaan ka markhaati kacnaa shahaadatu zuur maan samaynaa shahaadatu zuur ma samayn karno waxaan kusoo khatimayaa gabagabada dhowr qodob baan iri gunaanad iyo su'aalo su'aalaha waa qaar dadka laga yaabo inay isweydiinayaan ama ay aniga marmar i weydiiyaan oo igula kaftamaan waa midda koowaad horta waxaan leeyahay dib u xisaabtama Soomaaliyeed dib u xisaabtama qabyaaladda aad wax ku qiimeynaysaana adduunka maskaxdiisu fiyowdahay wax kuma qiimeeyo haddii kaleeto NASA waa wakaaladda cirka iyo fadaaga ee dayaxan ku degnay maaragtay qamar sanaaciga u samaysan Mareykanka abxaasteeda samaysan nin Masriya iyo nin Hindiya iyo nin Soomaaliya ma ay noqdeen expertiska u badan oo ma ay noqdeen experts kama noqdeen haddii la leeyahay aqliga idinku aad hadda ku hadlaysaan qadarka uma u dhara reerka uma u dhara talka uma u dhara haddii la oran lahaa NASA nin Masriya iyo nin Soomaaliya iyo jaamacadaha Mareykanka professorana kama noqdeen golayaashooda iyo barlamaanadoodana iyo wasaaradahooda laakiin waa adduun ku fikraya qofkan muxuu qaban karaa kartidiisu maxay tahay adduunka marka soo dega xogaa soo noqdo oo adduunka ha ka harinina aakhirana ha seegnina Soomaalidii baad si kala fandhicinaysaan war qofkan Soomaaliga wax qabadkiisa ku dhowr oo bahasha horta iska saara xisaabtanka dib u xisaabtama oo jawaab u keena arrinta midda labaad waxa weeye qaar bay weydiinaya wadaad masharraxaya بريان سياسات بمارة انت كاظ ضيايا مس رحيا جوابته حوي هرت السياسات إن كهضلو النبي عليه الصلاة والسلام باقي فري إلهي باقي فري إن سياسات كهض وأي سياسات محيتها دينته النبي محمد عليه الصلاة والسلام لبا مسؤولية بأهل مسؤولية ديسو مدوحة هيد رسالة ده القرآن كا إنه إن السوكر سيو سي ثيوري سي براكتيكال سي نظري إنه إن برو علمي إنه برو يا ويعلمهم الكتاب والحكمة يا إنه إن برو بي أهي مد اللبادنا وحي أهي إنه الدولة أبسو أو مامل أسميو أو نحضو ذا كتاب كان كحكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يا ولا تتبع أهواءهم هوذو ذا الراعن يوحي يكوي ريان كحكم كتاب كان إلهي با إلهي أصدري رسالة دينا وقتي علمي دينا وبري دولة دينا وادس مامل كذي سياسة دينا واتاقي هدي ولادي مسلمين تو قرنية دي الدنبين أي كتاب كيكو هرين دولة دينا كهرين يجا يطلع يجا قبل دينتي نبي محمد عليه السلام بيبقى كتجن نص كم إذا بقول كيف كنتم بيكتجن وأنا إني أقعدان ولادة الصومالية علماء الصومالية أرنت وإني أقعدان شأنك أمضى نور الشيء محي عنتا محي عبتا محي شدتا محي كل نوع شهي محي برتا عفمات كذا محوية وواجب كذا واجب كالنبي عليه الصلاة والسلام لا صدريه وهاي السجايري
الدنيا وحلو ماموري نبتقليدا عافماتك يقودك ينرشا هي لو ماموري من بات آمنا في سربه يا معافا في جسده عنده قوت يومه فكان محيزة له الدنيا تاسنا واقضوا مركا تاس هرتا دينتا إفريسا أنو ما شرحيسا ما يهدى يدين شيء أنو حان كفكريا حتى هدان كفكريوي هذا كم بفكري ما بكفكري توتالي أنت أي مسؤول سقطها ما بكفكري توتالي ما بكفكري لكن قف موادك الصومالي مركا وعدليه أو حريه أو قفكو رب الدورن كرو عدكيس أريد كرو مركا سانديه كرا وكفكريا إنه دكاس مسؤولية داس قادك مسؤولية داس إنا قادك رينك مركا سان كفكريا وأي مسؤولية دان كفكريا سكذا قرض ما وحنا برتي دينتي قفك آخرين سوء بقية إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة دتكو يكسو أردان نبي عليه الصلاة والسلام لا تطلب الإمارة أديكو هدات راتسته دبي كوكو نقونيسا هدي لو لا سو دونتنا إلهي waa kugu kaalmeynaya marka meel waa lay wataa iyo imisaad cod iibsan kartaa iyo inaad weydiiso ma sharaxaysaa waa hadal tiro maya mana ku fikiray xataa ma ku fikirin xataa jawiga saas inaan ka wado laakiin markay soo baxdo dad Soomaali oo xor u ah qofkay rabaan inay codka siin karaan laaluush iyo sanduuqaas ugu kala baxay iyo dadku codkaaga muxuu yahay اللي هذا عدك صار كوكلا بحنا دتك سوما دتك الصومالي العد كودا قفكي هيستاهل كانوا كم مقداسون هي أمسيه هي وحكي دقيستان سلامي وحكي دقيستان ومد الصومالي وعدها هي عدك الله ترين ما قرأت لكن وحقبت كودا إيو ضاع نمضوا إيو خيرك وشيء جيان بينكم أمسيه مركز تاس مركز يتمادوا هلا جارو لكن هذا مية dadka qaar ayaa waxay yiraahdaan waxaan arkaa mararka qaar waa su'aalo dadka qaar kood isoo gudbiyeen مثلا wuxuu ku oranayaa sheekh maxamed adigu hadda gobolka imaadeen banaankaas joogtaa maxaa ka ogtahay halkan dalka ma timaadido dalka ma aragtay wax ka tiraay oo dalka goorman ka maqnaa dalka goorman ka maqnaa waligay sanad kama maqnaa sanad kaamil xataa kama maqnaa سنة دول بواتاقنانجي إلا واجي دولتي دحد عضي سقاشن يبكودي وتاقنها يولي سنة وتاقنها بيت ما الرسول كو حاكا لك صهر لا يحب الله الجهر بالسوء ده كان هذا قبيل قبل كي يورش وحانكو إلي كو بضل هرتا مرارك قاركود دي إلهي سبحانه وتعالى مركز وحبيانين يسو أنا أمضي لكم من الشيغانا أمضي حاشا لله إنا أقوم من الشيغتو أما إنا أراه حسن قبط وحا يغفرا إن إلهي سبحانه وتعالى أقيه ثم وحا يغفرا صومالي إني أكتهي قفك حنوصا ماهي لكن هذا ربطو لأن يردنا أن تاريخ ذا وحبيبك أقين يا قبل هذا إذنكو أشيغان إيسان إن بدن أو إنتي نشيغان إيسان أنا قبل كان أولا شيء أنا قبل كان محانكو شيغا كإيمي أو قبيل كي أويهي بان وحان هبا إنان كان أقانو قبلك وغانا وحقبت بدنا هذا حسابته منه لكن ما لا حسابته معي يعني لا حسابته معي مقفان ما الله يبان لا حسابته معي كسمايا كسب بلو إلا يبور متى وأقول حسابته مكرا قبل بقول حسابته مكرا مقالة والبوان أوهي إلهي بين أقرنتها أنا ما هنا قرو صومالي لوي أكتاه الحمد لله رب العالمين هذا ربطنا اتصال يا الباني كسين قال ما حنا هير قنصحبوا ماركتي هير قنصحبوا لجنة هير قرع ابو ماركتي ابو ماركتي لو حيستا انا هير قرعي هير قنصح انا ما كعقل هذا ربطنا وانكو كين بروف كين لكن والله قبل كاغا انت تكون نقطه هيا ارك دونتا هذا الحقيقه الرادسه مركا الحمد لله رب العالمين تاس الهي بان ugu mahadinaya waxa weeye in badan oo leh maaragtay gobolkayga waxayga baa dadku uga aqoon badan yihiin gobolkiisa ugana wax qabad badan yihiin haddii maalin la xisaabtamana dee ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa xisaabta waa la keeni karaa wayna imaanaysa waxaan kusoo khatimayaa
siyaasiyiintu waxay ku dadaalaan hadda iyo xisbiyada hadda herdamaya siday kursiga ku haysan lahaayeen saas darteed laba arrin bay ku dadaalayaan laaluush badan ururso dowlado badan maaragtay samayso dad badan oo facebooka iyo gabayaa nimankii hore oo xukaamta waxay samaysan jireen gabayayaal iyaga u gabya hadda waxa weeye waa in facebooka lagaaga gabya facebooka waa in lagaaga gabya madaxweyne hebel madaxweyne fulaan hebelka fulaan dowlad fulaan xisbi fulaan waa in hadda waxaa soo baxay wax la yidhahdo social media gabayaaga social media casrigeedaan marayna gabayaagii waagii hore maaha oo shucaraa alcarab ay samaysan jireen balaadka lacagta loo qaybin jiray hadda badanaaba waxaa qolo walbi ku dadaasha ama xisbi walbi ku dadaala imisuu maaragtay ku leeyahay facebook muxuu ku samaystaa yaa u gabya yaa u heesa yaa u waxeeya waxaan ku dhihi lahaa marka dad idiin sacabtuma hadaa u baahan tihiin wallahi waxaa fiicnaan lahayd ummadda muslimiinta soomaaliyeed ee masaakiinta ee gaajada u dhimanaysa ee cudurka u dhimanaysa yaa ee waddada la ee biyaha la ee korontada la ee caafimaadka la ee tacliinta la ee wixii cunaan la iyagaa fiicnaan lahaa si daacada inay idinku duceeyaan cidina weligeed xukunka idinkama qaadeen cidina idin lama tartanteen sida hadda erdoganba 20 sano aan loola tartamin oo cid la tartamta 17 sano mar walba oo lala tartamo dadku ay qof kale qodayaan waxa weeye sababtuna waxa weeye waxaan la taaban karo idin sheegay maanta isbitaalada iyo adduunka waay marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal ku tartama dadka Soomaaliyeed bal mar iyaga inaad ka doontaan codka iyaga inaad codka ka doontaan oo iyagu idin aamina adduunkiina iyo aakhiradiina taasa u fiican sababtoo ah adduunkana sharaf baad ku helaysaa oo dadka wadamo bedelay adduunka taariikhda lagu siiyay hadduu gaar yahay xataa yaa Singapore baa laga hadlayaa waxaa la oranayaa Lee Kuan waxaa laga hadlayaa Malaysia Dr. Mahathir waxaa laga hadlayaa maxaan kuu sheegaa Korea adduunkii bay dhaaftay wadamadii maaragtay la sinaa bay dhaaftay waxaa la xusayaa Park Chung-hee baa la xusayaa oo odagii u horreeyay oo generaalka ah oo dictatorka ah maxaan kuu sheegaa Rwanda hadda la xusayaa bariyaha la sheegayaa Paul Kagame baa la xusayaa Mauritius baa la sheegayaa South Africa la sheegayaa Mandela la xusayaa hebelka baa la xusayaa walaalayaal intaasoo dhan anigu waxaan idinku soo khatimayaa hadda ka horna madaxda Soomaaliyeed baan uga sheekeeyay Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah khilaafada wuxuu tawalliyay sanadku markuu ahaa 99 hijriyada khilaafadii umawiyada dhaxdu ka soo galay niman walaal ilma adeer ay yihiin baa xukunka haystay nin ka mid ah Suleymaan ibn Abdul Malik la yiraahdo baa isaga u dardaarmay Umar ibn Abdul Aziz 2 sano iyo 4 bilood 2 sano iyo 4 bilood buu xukunka hayay 2 sano iyo 4 bilood taariikhda la geliyay kutubaha ka hadlaya xisaab male 2 sano iyo 4 bilood waa 4 sano maaya 6 sano maaya 8 sano maaya 10 sano maaya waa 2 sano iyo 4 bilood baa taariikhdu qoraysa kutubaha laga qoran xisaab male maxaa dhacay ummadii islaamka laga soo bilaabo China ila Andalus buu isbedel ku sameeyay فخري ما كبو حسمي غني بو كدغي wax sakadi qaataan la waay 2 sano gudood wax sakadi qaataan la waay dhalinyaradii buu guuriyay dhalinyaradina guurka rabo kullu waa leedin guurin laha hadii si fiican wax loo maamulo umada Soomaaliyeed khayr bay haysata nimankina dhalinyarada laga fariisan karo social media wararko waa leedin wada guurin laha idinkiyo gabdhiina gabdhii buu guuriyay weeshi buu guuriyay adoomihii buu xoreeyay dalkii uu qani yeelay kanaaluu jeexay yaa مصر مارد alaabta laga keenay wuxuu yiri Sham waa inay markiiba igu iimaan kartaa khooriyo ayuu jeexay bada buu jeexay hadda ma kanaalada in hadda la jeexayo wuxuu buundooyin buu sameeyay adduun buu kala furay waa 2 sano iyo 4 bilood cadaalad buu faafiyay 2 sano iyo 4 bilood ya halka taariikhdu aanay xusihayn xukaam 46 sano fadhiyay 46 sano ya المستنصر العباسي خليفة العباسي لح يا أفرتن صروب حكم كهي تاريخ إلى الركتو دي خلفاء العباسيين تأها ونأد أوجاتو إمسي أهين ما هنا وحكي تاريخ لكم على النقاط قيل كيسن وبديه كمان يال بقول الله هدي له يراد الخلافة العباسية شن بقول أو خليفة اسكت بالدليل واحد سويش ترين إساء هارون الرشيد المعتصم ومعتصماه بكو عام بحي قبل المسلمات ايدو كل جد ايدو دباتوتي ايو دفاعي حدودي بو عيدم بو كحي قبل عسكري يسلو دفاع قبل كليه ومعتصماه بيت قطس نيكل بيجر المملوكي اها
mamluuki wuxuu ahaa nimankii addoommada ahaa ee xukunka qabsaday mamaaligta la dhihi jiray masar buu qabsaday xukunkeeda hal sano keliyuu hayay taariikhdu galay hal sano keliyu 1 year buu xukunka hayay kadibna waa la dilay taariikhdu galayoo wuxuu taariikhda ku galay wuxuu diiday inuu madaxa u raacraaciyo tataarkii isagana jabiyey tataarkii wuxuu sameeyey musaalaxa siyaasiya dadkii siyaasiyiinta ahaa ee quwaadda ay ka soo horjeeday wuu la heshay wuxuu yidhi kaale xukunka nuskiisa ayna siina haddaan rabtaan laakiin aanu midowno cadowgeena tataarka baa nagu soo socdo labadeennaba nala qaaye musaalaxa siyaasiyuu sameeyey culimmadii iyo dadka wanaagsanaa buu soo dhaweystay iyagu mustashaariin ka dhigtay iyagu ka dhigtay dadka la taliya dad wanaagsan oo caqli iyo run ku biirin kara marka hal sano hay taariikhdu galay dadna waxa weeye 10 sano 20 sano 30 sano ay joogayaan waxba lagama xusuusanayo maanta waxaan iri marka hadalkii markii aan ka sheekeynayay hadalkaas aan ku khatimiyay markii aan ka sheekeynayay isbitaalada uu furay ninka la yiraahdo madaxweyne Erdogan ilaahay cimrigiisa araajiyo oo caafimaadna ha siiyo ummadda islaamkana ilaahay ku anfaco dadkiisana Allah ku anfaco waxqabadkiisa iyo ummaddiisa iyo diintiisa siduu u jecel yahay baan ku jecelahay wax kale maaha qabiil nagama dhexeeyo bahalkii nagama dhexeeyo wax kale nagama dhexeeya waxaan iri maanta markaan arrinkaa ka sheekeynayay madaxda Afrika hebelka Bongo hebelka fulaan Mobutu Sese Seko hebelka Jinni hebelka Kalaam hebelka fulaan annaga xataa Soomaali nagu dar qofka accident markuu galo madaxweynuhu hore Allahu naxariistay markii xoogaa yar gaaro riyaad ha loola cararo xagga ha loola cararo madaxda Afrika oo dhan oo dhulkooda aan wax ka samaysan oo isbitaal ka samaysan iyo kuwa hadda jooga hadday gobol ka taliyaan hadday dawlad ka taliyaan kullu waa in loola ordaa dal ajnabi waxay garan kari waayeen warheeda adigana meel adaab xanuunsanaya bariye meel lagu daaweeyo dadkaagana lagu daaweeyo bal hal isbitaal oo yar oo kliniga samayso way awoodi kari waayeen way awoodi kari waayeen saasay waxay noqotay markaas waxay noqotay arrin adduunku ka hadlo oo ninba Afrika 30 sano xukuumaya la yiri markaas waxa la geeyay Belgium isbitaal markaas dhaqaatiirtu waxay xaga laga keenay ninkan muxuu ahaa kaas la yiri wadan buu wuxuu xukuumaya Afrika 30 sano kaas yiraahdeen kan hadinto 30 sano dalkiisa uu joogay haduu hal isbitaal isaga xataa lagu daaweeyo ka samaysan kari waayay hada walaalayaal waxaan dheeraa idinka waxaan u sanaayay ma idinku waxaad ku tashanaysan in Dubai iyo laydin la cararo iyo maaragtay iyo waxaan ku sheegay ما تكون فكرتان إن دلكينا اللي يكون داويه ما تكون فكرتان دلكينا اللي يكون داويه هذا كان أنت أصلا كل صور لما يستريا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.